ثعلبة ابن عبد الرحمن أيا الأورنجري سحابي نقول أنا يرابوها نبي قادر سنجري يا سنجري نبي عليه الصلاة والسلام أساقنا بمجلس كنبي كموسن لما نجرين وإما نجري ولد أنا يرى أوايا ما شاء الله مرول ماشي صحابة ذو إمريا نبي وكأقلو يهي مع المها كم أيو النبي عليه الصلاة والسلام ميل أدري مركي وماشي سوء هذي سحابي قاس لأن يرى مركو ماشي سوء هذي أيا أساقو جيت كم مريا أيا واقاس أيا مسقولها أيا قاركود وحي أهانجرين الباب ميسل أهانجرين مسقولها الداه بالغو حري جري wax macnaha adag mara adag oo kala lagu xiri jiray asoo marka jidka saa umar iyo guri saa u fiiriyay musqushiiba ishiida ku dhacday markuu musqushii saa u fiiriyay ayaa musqushii daahi ay dabalyar fayday ayaa daahi fayday markii dabayshii ay fayday maxaa dhacay Thaclaba wuxuu arkay gabar ku dhex qubaysanaysa meesha saxaabigan yaa soo dirsaday nabiga soo dirsaday kaleey salaatu wasalaam daahi markuu saa u fiiriyay muxuu arkay وداهي إيش سأكون عضي قبر قبي سنة ما شاء الله لا إله إلا الله عجيب أنا كمان قبر قبي سنة إسكداية قبل ما أرتي الصادو يكوبك لا وحيب أنتوا قف كل عقتي سكوب بحيو داونا يا أنتوا إنترنت كيس العقوب بحصد أيوة اللي بوحص داونا يا قبل دقيقة وريد مركي إيش سأكون عضي سحابي قاس أيا وحى ويسري أوه ماي الله من نبي قاعد نجي إسود درس ها وهذا أنا محرم بين له وقبتين ها لا إله إلا الله أنا حال كيجا أما إلهي سبحانه وتعالى آيات بوكسو دجين دونا أنا حال كيجا أما إلهي آيات بوكسو دجين دونا أما منافقين تأيام كبير دونا مربى هذا بين الله وجبر قاون قبتين إيضا النبي يصادر صدي أنا جو خادمك النبي أنا جو نبي عليه الصلاة والسلام مجالس يسكوب بدن وهالك مركز تفريستا حدابا معصية نوعا كل عي إما إلهي ويصوفرنا يا آيات بيقصو دجيسة وإما أنا منافقين تأيام كمد أهي أيوري markaasa hadana wuxuu intaas raacsado yiri aniga ma ku noqonayo nabiga kaleey salaatu wasalaam gurigiina ma aadayo nabigiina kuma noqonayo gurigiina ma aadayo illa aayad ay igu soo degto inaan munaafiq ah la tilmaamayo ama inaan bari ah la tilmaamayo ninkaas muxuu sameeyay asoo jidka maraya ayuu daah yar ayuu soo u fiiriyay meel lagu qubaysanayo qofku dhex jiray muusan agayn ishiisa ku dhacday gabar qubaysanaysa inta bas ka dhacday waa saxaabi waa dhalinyaro waa youth adigoo kala ah ilaahay jecel subhanahu wa ta'ala la ilaha illa allah markuu inta yiri ayuu iska tagay nabiga kaleey salaatu wasalaam meel buu u dirsaday waa la tabay waawaya Thaclaba ibn Abd الرحمن where is he xaguu jooga Umar oo soo fiiri Salmaan oo magaaladii baa la yimid waa la waayay ya rasuulallah markuu nabigu weydiiyay kaleey salaatu wasalaam ku dhahay wiilkaas Muusa manne maxaa ku dhacay waxaan ya rasuulallah waa wiil iska dhalinyaro waxa laga yaabaa asxaabu la ciyaaray iyo dad ma artay inuu meelaha ku leexday maalin baa salaad buu nabigu tukaday kaleey salaatu wasalaam salaad kale uu tukaday ninkii ma soo noqonayo wiilkii ma soo noqonayo wax baa loo dirsaday maalin baa ka soo wareegatay maalin kale ka soo wareegatay markii dambe nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ninka hala soo raadiyo wiilkaas la yarada ah hala soo raadiyo Thaclaba ibn Abd الرحمن hala ii keeno saxaabadii way soo baxeen guriyihii dhan magaalada ka soo waayeen looqiyadii magaalada dhan bay ka soo waayeen way soo noqdeen ya rasuulallah Thaclaba waan soo weynay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri ordaya ka raadiya albarari wasahari meelahaas bariga iyo saxaraha iyo buuraha iyo raq iyo ruux la keeno saxaabiga asaga wiilka dhalinyarada ah ee majaalisan iman jiray ee nabiga jecel kaleey salaatu wasalaam ee ilaahay jecla raq iyo ruux la soo helo missing wala la yahay waaga iyada wanted iyo warqado la soo dhajiyay iyo majrani police iyo saxaabadii Umar bin Khattab iyo ma sha Allah Salman al-Farisi iyo yaa la raadinaya wiilka dhalinyarada ah ee nabiga jecel kaleey salaatu wasalaam ee ilaahay jecel ee khalad ka yar uu ka dhacay ee ishiisu xaraanta yar ku dhacday ee intaas yaa la raadinaya maalmaha kamida Umar ayaa soo baxay meel buura ay yimaadeen baad magaalada ka dambaysa Madiina ayay yimaadeen waxa u yimaadeen ciyaal meeshaas ari ku ilaalinay way weydiineen noocaas wiil noocaas oo dhar noocaas qaba ma aragteen mana arkin bay dhaheen markii dambe wiilka mid wuxuu yiri dadkii meesha ka hadlayay ma wuxuu yiri oo ma waxa jeeta albaka wiilka ooya maalin kasta kaas ma jeeta nin waxa jiro ooyo oo meel buur halkaana degan diyumi daawa marka maalin kasta ooyo oo inta badan oo sida ah kaas ma ka hadlaysa markaas yiri bal ka noo geeyo Thaclaba ibn Abd الرحمن buur buu ku dhex jiraa meeshii bay ugu yimaadeen Thaclaba maalintii kiiskan uu ku dhacay uu gabadha uu arkay asoo jidka maraya indhihiisu ay qabteen 40 bari oo ka soo wareegatay habeen kasta iyo maalin kasta wuu oynayay waliba qoliyaha reebaadiya waxay dheen xataa markan caanaha u lisayno gaawaha inta u soo lisnaanu dhiibayno markuu cabayo ilintiisa iyo waxa isku dhex darsanta caanaha habeen iyo maalin wuu oynaya way u yimaadeen
waxay ku dhahan yaa thaclaba nabiga calayhi salatu wasalam ku raadinaya soo bax markaasaa wuxuu ku yidhi aniga ma ilaahay baa aayad qur'aan iga soo dejiyey aniga ilaahay aayad qur'aan ma igu soo dejiyey munaafiqiin baa lagu tilmaamay markaas dhan maxaad ka hadlaysaa nabiga adiga ku yaray wiilana waxa ku dhacay kaalay markaas haddana uu weydiiyey aniga ma nabiga calayhi salatu wasalam baa aayad lagu soo dejiyey almuhim say u macnaha wadwadeen waa soo keeneen nabiga calayhi salatu wasalam bay u keeneen markay nabiga u soo galeen buu yiri aniga nabiga u geli maayo aniga dambigan oo ku dhacay anigoo saan ah nabiga uma galay calayhi salatu wasalam markaasay u yeereen nabiga calayhi salatu wasalam baa u gacan haatiyey oo yidhi thaclaba kaalay wuu soo dhoweeyey nabiga calayhi salatu wasalam halkaa maartay boojadiisa ah ayuu nabigu ku siixiyey calayhi salatu wasalam madaxiisii ayuu halkaa u dhigay waa nin muddo 40 macnaha days oynayay oo waxaan ku ori isbedeleen hormoonkiisii ay isbedeleen jirkiisii oo nafaqaadkiisii waxba ay hoos u dhaceen stress walwal depression xanuun yacla noolaa buu ahaa markaasaa nabigu calayhi salatu wasalaam yaa thaclaba halkaasuu ku hayaa dhabta ah yaa thaclaba maada tarju markaasaa thaclaba wuxuu leeyahay yaa rasuul allah madaxayga ma istaahilo inuu jirkaaga taabtay iga qaad yaa rasuul allah madaxayga inaan dhabtaada saaro he doesn't deserve maba istaahil yaa rasuul allah walaalayaal walaalkaas wax kale muun samaynin aragiisa ayaa soo jid maraya gabar qaawan ayuu arkay bas masquul wax kubaysanaysa ayuu arkay oo iyadoo wali albaabka aan xirin buu arkay markaasuu leeyahay yaa rasuul allah aniga madaxayga in halkan la saaro ma istaahilo just yaa rasuul allah inaan kaa qaadan doonaya markaasaa nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam yaa thaclaba maada tarjuu ثعلبة محد رجينيسا يا ثعلبة ماذا ترجو محد رجينيسا ثعلبة مركز حلي أرجو رحمة الله رحمة إلهي بان رجينا والنبي كلي عليه الصلاة والسلام مركز النبي قال هذا حلي عليه الصلاة والسلام يا ثعلبة ماذا تؤمن محد إلهي كمان قليسا مركز حلي عذاب كلي يان كمان قليا markuu sidaa yiri wiilkii oo nabiga dhabtiisa uu ku jiifo oo wadnihiisa iyo gariirka iyo waxaan ku uri yacni naxdinta uu nabiguna calayhi salaam uu dejinayo oo mataqaanaa u samaynayo validation uu leeyahay no istaji ilaahay subxaanahu watacaala ayaa wuxuu yiri thaclaba yaa rasuul allah waxaan dareemayaa jirkayga jariirica iyo waxbaan dareemayaa waxbaa isoo galgalay kaanaha yacni namla waxbaa jirkayga bayna jildii jirkayga iyo maqaarkayga wax ku dhex socdaa ayuu yiri yaa rasuul allah thaclaba dhahaya markaasaa nabigu wuxuu ku alayhi salatu wasalaam kaasi waa mawdki thaclabow waxaan hadda aad dareemayso waa malaku mawdki laa ilaaha ila allah waa malaku mawdki markaasaa hal mar ayuu neefsaday thaclaba halkiiba ku geeriyooday calayhi radia allahu canhu wa ardaa dhabti nabiga ayuu ku geeriyooday radia allahu canhu wa ardaa markuu geeriyooday ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa tacsiisii baa la diyaariyey janaasadiisii baa loo baxay markii janaasadiisa loo socday oo qabriga loo sii waday saxaabigaas dhalinyarada ah ayaa saxaabada qaar sida cumar radiyallahu anhu waxay arkeen nabiga oo ku socda suulashiisa saa ugu socda kor isu taagaya saa u socda markaasay dhaheen yaa rasuul allah waa waasic jidku waa waasic maxaad yacni saa ugu taagsanaysaa markaasaa wuxuu yiri way xaka yaa cumarow hooga ma ogid miya malaa'ig ayaa meel laga kala maran la'yahay malaa'igtii janaasiisa tashiicinaysay ee sagootinaysay ayaa meel laga kala maran la'yahay waa thaclaba ayay sagootinayaan hada asaxaabiyu aljaliil waxa uu sameeyey waa maxay jidka asagoo maraya oo nabigu meel u dirsaday calayhi salaatu wasalaam ayaa indhihiisu arag yar bay qabsadeen adiguna daily qabyaalad reero la isku dirayo heeso barankiyo dad qaaqaawan dad mataq ilaahay ka fogaaday iyo indhahaada u qabanayaan adigoo weliba sooman adigoo weliba 10 dambe ku jira adigoo weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajayn laylatul qadr waxaad doonaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni adigoo saa isooga laaqanaya haddana aad manaasil sare aad gaadho inaad darajaad sare aad gaadho walaalkay araggaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbuu kaa weydiin doonaa وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون قالوا أنطقنا الله مركا جوارح هذا لقى هذا الشيء قعمها لقى هذا الشيء أرق لقى هذا الشيء أو يجركوا أورندونا في سورة فصلت بالله سبحانه وتعالى ورميا ورمحد نقوم مرخاتك عيسى مركا سوحي ليه جركي جوارح ذي إلهي أول بنا أبو رأيا لقى هذا الشيء ولهلك أرق هذا الله أوحي إلى سبحانه وتعالى كي يهينكو
hadday kaa dhacna istighfaar iyo wanaag la imow aan dib ugu noqdo waxaynu ku jirnaa maalmihii qiimaha badnaa maalmahan ayada ah waxa weeyaan waa muusimka dadka mutasaabiqiinta ah waa mawsimka amaba seasonka dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran kuba beecshirada wa suuqu lcaabidiin waxaynu ku jirnaa maalmahan suuqan ay ka adeegtaan dadka caabidiinta ah wa fursatu lmujtahidiin waa maalmo waxaynu ku jirnaa dadka mujtahidiinta ah ay ka faa'iidaystaan maalmahan ayada ah nin walba makaadintiisii buu soo qaato waxbuu dabanayaa nin walba shabaqiisii buu tuurtay qof walba yaambadiisii buu soo qaato beertiisii buu falanayaa adigu maxaad falanaysaa habeenadan ayaga qiimaha badan nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yashuddu mi'zarah nabigu wuxuu ahaa mid macnaha guntigiisa adkaysta buu ahaa calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala alcashir markuu soo galo tobanka dambe markaasaa calayhi salaatu wasalaam kaana yactazilu nnisaa xataa romantic iyo jacayl iyo maaragtay lamaano iyo dhinac buu dhigi jiray wakaana yuuqidu ahlah nabiga calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa ayuu toosin jiray markaasuu ku dadaali jiray in ay ka faa'iidaystaan haddaba dadka qaar waxaa jira aanan waxaan ka warhaynin maxaa yeelay quluubtooda ayaa amwaatan noqotay maalmahan waxaan ka sheekaynayno iyo nuurkan iyo iimaaniyaadkan dad waxaa jira quluubtooda way dhimatay kama warhayaan khayrkan dhacaya kama warhayaan waxaa u muuqda waa la soomay anna waa la soomay waxaa u muuqda intuu soonku socdo anna baraankiyaan daawanaya intuu soonku socdo muufiyaan daawanaya intuu soonku socdo jar iyo waxbaan ciyaaraya intuu soonku socdo musalsalaan ciyaaraya dadka unba iskala sooma yihiin ma ahane iyaga wax maaragtay gaar ah ama ihtimaam gaara umaba lahaba waxaad u malaysaa in ay dadka iska raacsan yihiin laakiin iyaga aysan u lahayn qiimo gaar ah dareen gaar ah jacayl gaar ah ka faa'iidaysasho gaar ah ahamiyad gaara maalmahan uma laha walowlaa dadkaas aysan soomi lahayn oo nin walba si sikrada usoo la oran lahaane maba soomeen ee jamaahiirtay iskala sooman yihiin dadka ayaga ilaahay subxaana wa taala war baraaruga war adiga si individual si shakhsi ah get yourself is hel adiga si adiga khaas ku ah ilaahay subxaana wa taala u baro oo waxaan ogow in adigu ay dan kugu jirto ka faa'iidaysa baaraka allah fiik aan kusoo gabagabaynayaa عائشة رضي الله عنها مركبت يا رسول الله لو أني أريد ليلة القدر هدي أني إلهي إتصيو وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام imagine كسوقات إلهي وحي وافجي ليلة القدر وانفر ليا سين أقف إذا يا رسول الله مركز النبي وحكور عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اهدوا عذا اللهم إنك عفو إلهي وأذو حتى من أسماء هذا هي صفات كذا وحكم العفو إن عفو استجع عفو وإلهي مقعدي سيء المميز كمديهن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إلهي عفو كان واجع شيء هدو أذق إلهي كو عافيني جنة هذا وأرمارك وادقليسا هدو بإلهي كو عافيه ذنبي قاذي بالعفنية عقابت هذه بالعفنية حسابت هذه بالعفنية عافس وحكوينو إلهي سبحانه وتعالى بحيه مجرد العفو والمغفرة علماء روحي ودا ما مغفرة ذا يا سريسة مس عفو ذا يا سرية مركا ولا ليال إلهي عافس ويديسه وح الله وحي كاسو دعي مال مهن يا سند كان يا مال ما سو سعدة أي إلهي سبحانه وتعالى كعفنية وحرب أنا كسيد قصة كله وعفو كسابسن عثمان ابن عفان رضي الله عنه صحابي قاس أحاول بكي صدحات خلافة الإسلام كمركي اللي دلي مركي يوم الدار ما أنت تقولي سلقوس وورري أو شهيدي خوارجته أي دلين يقولي سيكون لحد دلين عثمان ابن عفان ذي النطاقين ننكي عليه الصلاة يعني رضي الله عنه إلهي يكون أرزاقي إن أقول سدو أسمائي ما أرتي أقول سدو ما أرتي ما شاء الله النبي عليه الصلاة قبله سي صد مرين زينب رضي الله عنها عثمان بن عفان maalintii la dilay ee gurigiisa lagu dhex dilay asagoo waliba qur'aan akhrisanaya amiir almu'miniin ah khawaarijtu ay dileen dad muslimiin sheeganaya oo shahaadanaya oo sida maanta adduunka dadka qaar jooga ay sameeyeen dileen ayaa mid kamid ah khawaarijtii baa wuxuu ku dhaartay uu yiri aniga hadaan Uthman xaso meyd xataa u gal xitaa meydkiisa waa dhibaateynaya markuu u soo galay Uthman oo meydkiisu yaalo radiyallahu anhu wa ardah wa nawwara Allahu qabrah asoo meydkiisu yaal markuu soo galay ayaa intuu waran soo qaatay ayaa wuxuu damcay inuu feeraha ka galiyo Uthman ibn Affan waa dhintay oo way dileen markuu damcay inuu feeraha uu ka galiyo Uthman ibn Affan ayaa shallat yadah ninkii waxa la gacantiisa sida geedka kala noqotay way qalashay
sidii qof dabayl martay gacantiiba engegtay halkiibay ku engegtay halkiibuu ka soo cararay gacantii sidii yani u engegsanayd oo u qalalsanayd waxaa la sheegaa xasan albasri iyo axadu taabiciin midku ahaaba ayaa maalin maalmaha kada wuxuu maqlay ninkiio intuu kacbada ku dhegan yahay maalin ramadaana kacbada ku ooynaya oo leh allaahumma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii wain kuntu adunnu annaka laa tacfuni ilaahayow adigaa cafiska jecela aniga cafi inkastoo anigu aan ogaada cafin doonin inkastoon ogahay in aadani cafin doonin buu leeyahay ذنبك وكل عيب أجيهي يعني صحابي ملازمي أو أها ثالث خلفاء الراشدين أو الظلم اللي قد لي أو ميد أو يالا أيوح دمع إنه ولا ميد كيسي ميد قراعه مركز قعنتي سي قل شيء مركز كعبة كعوني وحو ليهي اللهم إنك عفو إلهي وحن رجينا يا إن هذا عفسه وإن كنت أظن أنك لا تعفو إنك سو أنا يقين سنة هاي أن لينا إن هذا عفين دون ولا ليال ذنوبته ويكلا واوين تحي سيدا إلهي سبحانه وتعالى مالمها رمضان كو أبلاري وويني خيرك إيا وناقة إيا حسناتك إيا أجورته أيا ذنوبتك هذا عنا عظم كيدا إيا مصائبتي ذا إيا ليضحي أينو كفك عنه أينو نسكدو عينو وحن كسو قبل دعاء ذا أي ذا نحيسا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كل ينها بإذن الله الكريم اللهم إنك عفو إلهي وأذو أسماء هذا يسبب كذا عافي يا كمد فاعف عنا عافس كان واجع شاي إلهي ونعافي يوم القيامة كوبا الجنة قال بغير حساب ولا عقاب إلهي كوبا نقدر أو نعافي آمين آمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.